magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland waxaa maanta ka ambabaxay madaxdii iyo waliba tababarayaashii Imaaraadka Carabta ee ku jiray xerada ciidanka badda ee Puntland ee BMBF halkaasi oo muddo dhowr sano ah ku tababari jiray ciidamada Puntland ila xoggaal ayaa Kalsan TV u xaqiijiyay in ay isku dayeen saraakiishii Imaaraadka Carabta ee maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso in ay horay u sii qaataan qalabkii muhiimka ah oo xeradaasi ciidamada BMBF yaalay inkastoo arintaasi gaashaanka ay u dareereen mas'uuliyiinta Puntland oo aan wax ka weydiinay la wareegitaanka ciidamada BMBF ee Puntland ee badda oo ay tababari jireen Imaaraadka Carabta ayay dawladda federaalka Soomaaliya waxay u soo wakiilatay wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ku sugan Puntland fulinta go'aankan ayaa ku yimid isfahan buuxa oo ay wada gaareen Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxayna talaabadan ay saldhig u tahay go'aankii dawladda Soomaaliya ka soo baxay 12 Abriil 2018 ee la xiriiray in ay guud ahaanba Imaaraadka Carabta ay ka wareegaan xeryaha ciidamada Soomaaliya ay kaga sugan yihiin Xasan Heykal Kalsan TV Boosaaso.